taxanaha sideedaad ee maanta waxa uu inooga bilaaban doonaa halkan waxa soo saaray tarjumay idilana socodsiinaya anigoo ah Cabduqaadir Maxamed. waa boqortooyo ku guuleysatay birta iyo dhiiga. waa 200 sanad taariikheedka ka hor dhalashadii Nabi Ciise. Roomaanka ayaa dagaal la galay boqor Philipkii ka aramin jiray Macedonia. si loogu ciqaabo dagaalkii uu ku taageeray Hannibalkii reer Carthage maalintii uu baaba ka dhigay askartii abid ugu badnaa ee Roomaanka. waa koonfurta Gariiga. sanad taariikheedku waa 197 ka hor dhalashadii Nabi Ciise. Roma ayaa si lama filaan ah u jabisay boqor Philipkii Macedonia. guutooyinka ciidamada Roomaanka ayaa ku sii socdaalaya bariga Aasiya. waa Magnesia. Roomaanka ayaa ku wajahan ciidamada boqortooyada Seleucid. reer Seleucid ayaa la jabiyay. waxa ay tilmaam u tahay soo afjarida xukuumadda Seleucid gabi ahaanba. imika Roomaankii ayaa u jiha rogtay dhinaca galbeed. waxa ay u dhaqaaqeen gacanka Iberia ee Venezuela si ay ciidda afka ugu daraan qabaa'ilada dega Hispania. taariikh sanadeedku markuu ahaa 149 ka hor dhalashada Ciise. Roma ayaa dirtay raxanka maraakiib badan ee ku wajahan koonfurta. si ay marqura kaga taqalusaan boqortooyadii reer Carthage. taariikh sanadeedku waa 146 ka hor dhalashada Nabi Ciise. waa degalka Carthage ay ka samaysteen koonfurta Afrikada. muddo 3 sanadood ah ayay ciidamada Roomaanka ahi isku hareeyeen magaalada. waa gugii taariikh sanadeedka 146 ka hor dhalashada Nabi Ciise. waxa ay jabiyeen darbiga. maalmo kadib dagaal ku dhex marayay wadooyinka reer Carthage ayaa isdhiibay. magaaladii ayaa waxaa ka bilowday bilalaqaysiga hantida reer Carthage halkaasi deganaa. tiro ka mid ahaa dadkii ayaa loo qafaashay adoonsi. gidaaradii ayaa la jajabiyay. magaaladii ayaa la gubay, dhulkana lagu daray. isla waqti xaadirkiiba
Roomaanka ayaa u jihaystay dhanka iyo Gariiga, waxa ay cagta mariyeen Gariiga. magaaladii Corenza ayay gacanta ku dhigeen sanad taariikheedka markuu ahaa 146 ka hor taariikhda dhalashadii Nabi Ciise. imika Gariiga waxa ay noqotay magaalo xukunkeeda uu hoos tago Roomaanka. waa Roma taariikh sanadeedkuna waa 146 ka hor dhalashada Nabi Ciise. Roma waxa ay maamulaysaa Mediterranean-ka. waa kuwa aanu ogaalka u qabin caajis badan oo aanan doonaynin in ay ogaadaan hanaanka iyo nooca dawladnimo ee ay Roomaanku wax ka yari 53 sanadood ay ku qabsadeen adduunka oo dhan oo ay hoos geeyeen xukunkoodii Roma. guul aanu horay loo arag soo laysma odhan karo. waxaa sidan yidhi Polybius oo ka mid ahaa taariikhyahanadii Hellenistigii Gariiga ee ay burburisay boqortooyadii Roomaanka. waa odhaahda tixanaha 8aad ee soo koobay guusha Roomaaniyiinta ay gaareen. kadib burburkii Carthage iyo la wareegidii boqortooyadihii Hellenistiga ee bariga, Roomaanka waxa ay noqotay hoggaanka Mediterranean-ka. balse maxay ahayd sirta guusha ciidamadii militariga ee Roomaanka? tixanaha 9aad ayaad kaga bogan doontaan jawaabtan. tixanaha naga maanta halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. waxaan idinku dhaafayaa inta ka horeysa nabadgelyo. haddii ay tahay markaagii kugu horeysay ee aad ina soo booqato, subscribe saaro channelkan si aad u hesho macluumaadka xiga ee aan soo tabin doono. filashada hadafkanaguna waa 100,000 oo subscribe mar dhow ee aan fogeyn insha Allah. waad ku mahadsantihiin kamid ahaanshaha daawadayaashana. ideelkiinba meel waliba aad joogtaan, maalin wanaagsan ayaan idin rajeynayaa.